والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الكيغا مبادنا رئيس الوزراء نكون ريجينيا marka hore ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Hamza wasiirada dawladda xildhibaanada culamaa u diinka saraakiisha saxaafadda iyo dhammaan inta joogtaba waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr. ilaahay baan dhammaanteena u mahad celinaynaa maalmo dhowr ah meeshaan shir ku qabsanay naguna amaansaday nana waafajiyay runtii tawfiiq iyo ismarxabayn iyo isu tanaasul iyo isu dhimrin iyo isu turid iyo is ixtiraamid waa wax ilaahay loogu shukriyo. law anfaqta ma fi al-ardi jamii'an ma allafta bayna qulubihim walakin allaha allaf. ilaahay ba awoodaas leh isaga qulubta haya isaga awoodaas leh waan ugu mahadinaynaa subhanahu wa ta'ala. marka labaad waxaan runtii aad u raali gelinayaa ra'iisul wasaaraha oo markuu noo yimid anagoo hogaasi u kala daadsan runtii noo yimid oo cabaar aan hogaa jacatadinay ra'iisul wasaaraha waa ka raali gelinaynaa. culimada aad baan ugu mahad celinayaa waa la idin yeero waadna ajiibteen aad baad noo ixtiraamteen waa noo dulqaadateen waa isu dulqaadateen sumcaddii culmanimo ayaad aad u ilaaliseen. dhib waxaa noogu filnaan lahaa inay caamaduna dhahdo masjidkii qaylaa ka yeertay masjidku qaylo kama yeerin khayr iyo ducaa lagu soo khatimay. ilaahay baan ugu mahadinaynaa alxamdulilaahi tacaala. ra'iisul wasaaraha culimadu markii la waacayna runtii si aad u ixtiraam badan oo dhaqso ah bay noo ajiibeen. shirkaa waad la socotay madaxweynaha furay adna maanta waxaan kaaga fadhinaa inaad noo khatimto kalimaadkaaga aad u qiimaha badan aad jeediso. culimadu runtii kalimaad aad u qiimo badan bay jeediyeen inta badanna waa musajal dib baad u taabici doontaa. iyagana kalimaad ka haray bay noqon doonaan cimriga meel uu joogo alla og. kelimada tayibada ah waa sadaqa waqti dheer inay socotaa laga yaabaa ajyaal ay ka faa'iideystaan hadday xun tahayna waa sidoo kale ilaahana badbaadiye. marka culimada waxaan kaloon dhahayaa saddex qaybood weeye ra'iisul wasaaraha culimadu culimo dibadday ka yimaadeen oo kala duwan dalal iyo qaarado kala duwan. culimana gobollada inooga yimaadeen culimana gudaha caasimadda ay ka soo baxeen intubana way fadhiyaan. mudane ra'iisul wasaaraha culimadan runtii taariikh fiican bay sajileen inta hadda hortaada ka sheegeen waxa aad uga badnaa intay maalmahan ay sheegeen. taariikhdaas khayrka ah khatimadaas aad u fiican ayay sajileen. waxaa ra'iisul wasaaraha shirkan miise kale uu lahaa gabdho culimo ahoo iyagana dakaatiro iyo mastarba isugu jiro inay fadhiyeen oo iyaguna shaarikeen saad hadda bayaanka baad arkaysa u shaarikeen ay iyaguna kalimaadkooda soo jeedsanayeen. iyadan waa wax weyn insha allahu tacaala inay intaa ka sii bataanna waa la rajaynaya. marka hadalkayga waxaan ku soo koobaya culimada gudaha joogo ama gobol ha joogeen ama caasimadda markasta muxaadaraad bay galaan sida badan telefishinka waa laga sii daayaa. culimada bannaanka ka timid waxaan ka codsanaynaa hadalladii meeshaan laga jeedinayna waqtiga uu ku yaraaday inay fursad noo siiyaan muqaabala telefisoniya inay ku dhammaystaan muxaadaraadkay soo diyaarsadeen waxay ku talagaleen nin walba inta uu awoodo oo tabartiisu ay tahay in laga duubo ayaan ka codsanaynaa. maxaa ku dhacay baal mid kale ma haysan هذا ما لي مغلى حاجرين وقتك وقابي هاي رئيس الوزراء adoo aad u mahadsan dhaqan raaliya ku soo dhawow kelimadaada si aad u tiraahdo.